wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya xaaladda magaalada Boosaaso ee xudunta ganacsiga Puntland waxa ay muujinayaan walwal la xiriira in halkaas uu ka dhaco isku barac hubaysan oo dhex mara ciidanka difaaca ee Puntland kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada si xooggan loo geynayay arrin ka dhalatay xilka qaadis oo madaxweynaha Puntland Siciid Dani 6 maalmood ka hor ku sameeyay agaasimaha hay'adda ciidan ee BSF ee Puntland taas oo agaasimaha xilka laga qaaday uu diiday kuna tilmaamay sifo sharci darro in loo maray hanaanka xilka qaadista tallaabadaasi wixii ka dambeeyay xiisadda ayaa sare u kacaysay baaqyada odayaasha dhaqanka ayaa sareeyay ha yeeshee ma muuqato cid dhinacyada oo arrintaasi aqbalay taasina waxaa ka dhalatay isweydiimo badan oo ku saabsan xaaladda magaalada ciidan badan ayaa la geliyey magaalada saacadihii la soo dhaafay ciidankii ugu dambeeyay ee Puntland ayaa la geliyey gudaha magaalada dad badan ayay walwal iyo cabsi ku beertay dhaqdhaqaaq ciidan ayaa kadib 9kii fiidnimo ee caawa wixii ka dambeeyay laga dareemay magaalada Boosaaso ilo xoogaal oo ka tirsan dhinacyo kala duwan waxay noo xaqiijinayaan cabsida ugu badan ay tahay in weerar uu dhex maro ciidamada ka wada tirsan dawladda Puntland qayb ka mid ah ciidanka ayaa la geeyay difaacyo kala duwan dhinaca xukuumadda ciidanka ugu badan ee magaalada gelisay waxa kale oo uu heliyay ciidan kale oo ka tirsan kuwa ay maamuraan Imaaraadka Carabta ee ciidanka Puntland oo yana la soo geliyay qayb ka mid ah magaalada dhammaan ficiladan oo dhan waxa ay ku soo beegmayaan xilli si weyn la isku weydiinayo doorka dhinacyo kala duwan arrinta ay ku lug lahaayeen maalmihii la soo dhaafay waxa socday dadaal la xiriira in xaaladda hamnabdeed lagu wajaho ha yeeshee ilaa iyo hadda uma muuqato min natiijadaasi ay noqotay sidii la doonayay in nabad loogu soo dabaalo magaalada madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo ka hadlayay maanta kulan uu la yeeshay qayb ka mid ah bulshada Puntland waxa uu ka jeediyay hadal u muuqda inuu hanjabaad isla markaana uu sheegay inaysan jiri doonin ciidan iyo dawlad ka dhex dhisan taas oo loola jeeday in la xiriirto arrinta ku saabsan arrinta PSF ee magaalada Boosaaso dalkan hal dawlad uu yeelanaya dawlado isku dhex jira ma yeelanayo hadii ilaahay hal ciidan buu yeelanaya ciidamo rag leeyihiin ma yeelanayo hal dakhli buu yeelanaya dakhli ninba meel uu markaan imid waxa jira wax la dhaho nin walba 2% baa meel loo saaro curaaro wax la sheego maalintii ugu horreysay ka takhalusnay sababtoo ah jidadkaani waxaan ma aanan sameeynin hadda waxaas ku shaqeynayna ciidano hebel leeyihiin maalmihii ugu dabayaaqadeedii baa socotay kulli waas raacayaan dalka iyo shacabka leh dawladda wax inaga dhaxeeya abwaanadii waxay tiri qofkii tagay oo la xusi doono waxaana lagu xusaaya wax dadka kala dhaxeeya iyo tala dadka dhaxaysan ka tagayna dilay taliyii hore ee ciidanka daraawiishta Puntland General Siciid Dani ayaa maanta ku baaqay in xiisadda la dejiyo labada dhinacna waxa uu ugu yeeray inay ka baaqsadaan wax kasta oo isku dhac ciidan keeni kara madaxweyne Dani ayuu ugu yeeray ama kula taliyay inay tahay inuu ka laabto wareegtadii uu xilka ka qaaday agaasimaha BSF maalin ka hor madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay in cidna aysan sulux iyo waanwaan ka doonayn oo ay wajihi doonaan dhammaan sharciga ciidankana ay dabaqi doonaan wixii intaasi ka dambeeyay xiisaddu way soo taraysay cabsi ayaa laga qabi karaa dagaal ka dhaca Boosaaso dad badan ayaa guryahoodii saqda dhexe ee caawa ka qaxay markii ay dareemeen in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii hore dhaqaaq militarina uu ka jiro dhinacyadu aaga isku hor fadhiyaan dagaal ka dhaca Boosaaso si weyn ayaa looga diiranayaa mustaqbalka siyaasadeed iyo kan amni ee uu ku yeelan doono guud ahaan mandiqada Puntland madrasada Darul Istiqama oo uga barateen barashada Quraanka Kariimka kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasta oo aad joogto waad noqon kartaa ardayda Darul Istiqama wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran Darul Istiqama daarta cilmi